bismillaahi raxmaani raxiim wacanow wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 17 bisha juun sanadka 2026 maalin arbaco ah qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey duqeymaha lubnaan laga fuliyey iiraan oo dhankeeda la sheegay in diyaarada daroonisa ay adeegsatay xilli lagu dhow yahay heshiis in la gaaro mashiicada iyo sunniga ayaa la doonayaa mar kale qoorta in la isu geliyo muxuu madaxweyne Trump uu kaga dalbaday Netanyahu in arrinta Lubnaan Syria loo daayo falanqayn iyo macluumaad ku saabsan 14 qodob iyo xogta rasmiga ah ee wargeyska Bloomberg uu banaanka u keenay haddii qodobka afraad si toos ah loo dhaqangeliyo fursad kale miyay u noqon doontaa dowladda Iiraan talyaaniga nidaam difaaceedka uu doonayo inuu dalka Turkiga uu keeno iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa aabo cabdi nuur cismaan oo ii soo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal aan ku hormaro marka hore Mareykanka waxa uu shaacu ka qaaday iyadoo lagu dhow yahay saxiixidda heshiiska is-afgaradka ee Iiraan iyo dowladda Mareykankaba in la arkay maanta oo Arbaca diyaaradaha drone ee dowladda Iiraan oo la sheegay inay weerar ku qaadeen qaar ka mid ah maraakiibta ganacsi ee ku sugan marinka Hormuz iyo agagaarkiisa inkastoo aan la ogeyn sababta rasmiga ee ku qasbi karaysa dowladda Iiraan inay weerarkaas ay fuliso haddana saraakiil Amerikaan ah iyo warbaahinta Israel inta ugu badan iyo xitaa warbaahinta Israel taageerta ayaa macluumaadkan baahinaya barta Twitter-kana si weyn ayaa loogu falanqeynayaa waxaa lagu waramayaa in waa berigii maanta oo Arbaca ah diyaarada daroonaysa inay Iiraan ku weerartay maraakiib ku sugnayd marin biyoodka Hormuz xilli maraakiibtaasi isku dayeen inay marinka ay ka gudbaan Iiraan ayaa si cad u sheegtay marinka inay iyaga ay maamulaan sidaas daraadeedna laga doonayo maraakiibta qaarkood dhaqaalaha amniga lagu xaqiijinayo sida maalintii shalay uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Iiraan oo warbaahinta la hadlay haddii sheekadani dhab ay noqotona waxay muujinaysaa inkastoo heshiis la doonayo in la gaaro in haddana weli xaalad taagtaaga marinka Hormuz ay ka jirto suuragalna ay tahay in mar walba Iiraaniyiinta ay la xisaabtamaan maraakiibta isku dayaysa inay ka gudbaan marinka Hormuz dhinaca kalena waa berigii maanta oo Arbaca diyaaradaha dagaalka Israel ayaa duqeymo ka fuliya dhanka iyo Lubnaan sida mas'uuliyiinta ay sheegeen warbaahintana ay baahinayso iyada oo heshiiska Iiraan iyo Mareykankaba qayb uu ka ahaa in Xisbullah ama Lubnaan guud ahaan aan wax weerar lagu qaadi kareynin wakaaladaha wararka ayaa baahinaya diyaaradaha dagaalka Israel inay maanta ay duqeeyeen deegaanka Nabati iyo Al-Fawqa lagu magacaabo oo u dhow mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka Lubnaan duqeyntan waxaa la sheegay sidoo kale inay saameysay deegaano kale lama sheegin sababta rasmiga ee ka dambeysay Israelna si weyn ay uga soo horjeedaa in Lubnaan lagu daro qorshaha wada hadalka iyo arrinta la doonayo dagaalka in lagu soo gabagabeeyo iyo heshiiska maalinta Jimcaha la doonayo in lagu gaaro magaalada Geneva oo dalka Switzerland ah waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah waan kula wadaagi doonaa like-sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay si cad wuxuu u sheegay dowladda Mareykanka in lacag iyada ay leedahay inaanay siin doonin dowladda Iiraan si kastoo xaaladdu ay ahaataba iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin saxiixidda heshiiska rasmiga ee afgaradka ee dhex maraya dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan Jimcaha ayaa Geneva lagu saxiixan doonaa Vance wuxuu sheegay marka inuu Tehran kaga digayo haddii aysan furin qodobada heshiiska oo barnaamijkeeda nuclearka militariga iyo gantaalada ay sii ahaan doonaan kuwa burbursan oo shaqayn waaya yacni la beegsan doono waxaana uu sheegay in uu ka qaybgalayo wada hadallada magaalada Geneva sidii uu kaga qaybgalay kuwii ka dhacay gudaha dalka Pakistan si loo qiimeeyo xaaladda guud laakiin wuxuu yiri lacagta 300 bilyan iyo lacagaha kaleba annaga si toos ah dowladda Iiraan uma siin doono lacag Mareykanka u leeyahayna Iiraan lama siinayo malaha arrintaasi waxay buuq badan ka abuurtay gudaha dalka Mareykanka dhinaca kalena wakaalada wararka ee Bloomberg ayaa waxay soo bandhigtay nuqulka qabyo qoraalka heshiiska afgaradka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iiraan kaasoo Switzerland lagu kala saxiixan doono sida dokumentiga ku cad heshiiska wuxuu dhigayaa dagaalka si buuxda in looga joojiyo dhammaan jihooyinka isla markaana labada dhinac heshiiska ma dambaysi ay ku gaaraan muddo 60 maalin yacni 2 bilood gudahood in heshiis lagu gaaro
dukumentigan markaa waxa uu imaanayaa xilli doodo badan ee gudaha Mareykanka ay ka socdaan oo heshiiskani ku saabsan dhab ahaantii iyo waxa uu xambaarsan yahay, lamana xaqiijin in qoraalka ama nuqulka wargeyska Bloomberg uu daabacayo inuu yahay nuqulkii ugu dambeeyay la ansixiyay markii la sameeyay saxiixa elektrooniga ee madaxweyne Trump uu shaaciyay maalintii Isniinta ee la soo dhaafay. Aan kula wadaago marka 14 qodob ee heshiiska. qodobka koowaad wuxuu dhigayaa in Mareykanka, Iiraan iyo sidoo kale dhammaan xulafadooda inay ku dhawaaqeen dagaalka si rasmi ah in loo joojiyay lana soo afjarayo dhammaan jihooyinka kala duwan ee dagaalka uu ka dhacay. qodobka labaad, labada dhinac iyo xulafaduba waxay ballan qaadeen inaysan qaadi doonin wax tallaabo ah oo ciidan ama fal colaadeed, isla markaana laga fogaan karayo khatar kasta oo burburin karaysa heshiiska. qodobka saddexaad, Tehran iyo Washington waxa ay isku waafaqeen inay gaaraan heshiiska madambaysa muddo 60 maalin gudahooda, taasoo la kordhin karaya 60 maalin haddii loo baahdo. Yacni muddo 60 maalin gudaheed waxa dhiman oo idil ayaa la doonayaa in laga heshiiyo, haddii la isfahmi waayana waqti waa la kordhin doonaa. qodobka afraad oo kan ugu muhiimsan dhanka Iiraan marka la eego waxa uu dhigayaa Mareykanka wuxuu isla marka la saxiixo heshiiska uu qaadi doonaa go'doominta dhanka badda ee saaran dowladda Iiraan. waxaana qodobkan ku lamaana qodobka kale ee shanaad oo ah Mareykanka wuxuu ballan qaadayaa in ciidamadiisa uu kala bixi doono hareeraha dalkaasi Iiraan muddo 30 maalin gudaheeda marka heshiiska kama dambaysta la dhaqangeliyo. yacni 60 maalin maadaama heshiiska kama dambaysta loo ballamay, heshiiskaasi markii si dhammaystiran loo dhaqangeliyo Mareykanka ciidankiisa wuxuu kala bixi doonaa hareeraha Iiraan. marka qodobkan aan dul istaagno ma waxay ka dhigan tahay ciidamada Mareykanka waxaa laga saari doonaa gobolka Bariga Dhexe ama saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Khaliijka, maadaama Iiraan ay khatar weyn u aragtay. horeyna Iiraan ay u dalbatay in Mareykanka ciidankiisa laga saaro gobolka Bariga Dhexe, weliba ay dowlado badan oo Carbeed ay ku dhahday yani Mareykanka nagu dhex jiro ayaa dhibaato inoo keenaya. sidaa daraadeed waa in ciidamadiisa aadan u ogolaanina inay yani deegaanadiina ay adeegsadaan. marka qodobkaas ayaa la dhaqangelin doonaa, mise waxay ka dhigan tahay hareeraha Iiraan, yani dhanka badda iyo maraakiibtii halkaasi ku sugnayd, diyaaradihii dagaalka, kuwii sirdoonka, dhammaan waa la saari doonaa ayay ka dhigan tahay. si faahfaahsan xog loogama bixin qodobkan. qodobka lixaad, Iiraan waxay ka shaqayn doontaa in maraakiibta si caadi ay kaga gudbaan marinka Hormuz muddo 30 maalin gudaheeda, iyadoo markaasi la tixgelinayo baahida loo qabo in la saaro caqabadaha jira. yacni in la qaado miinooyinkii wax walba oo amniga xaqiijinaya si ay maraakiibta si nabadgelyo ay kaga gudbaan marinka Hormuz. Iiraan ayaa la doonaya inay ka shaqayso. qodobka toddobaad, Washington waxay la shaqayn doontaa saaxiibadeeda gobolka sidii dib loogu taageeri lahaa dowladda Iiraan kaabayaasheeda dhanka dhaqaalaha. halkan ayaa waxaa la isla ogolaaday 300 bilyan ee dollarka Mareykanka in Iiraan lagu maalgeliyo. dowladaha Khaliijka ayaana la doonayaan maalgelintaasi inay sameeyaan. durbaba waxaad moodaa Iiraaniyiintu inay qaadayaan tallaabo ah inay korontadooda iyaga iyo Qatar ay isku xiraan. waxaan arkaya warbixin lagu daabacay, waxaan u malaynayaa wargeys Caajil News la yiraahdo oo Sacuudiga inuu ka soo baxaan u malaynaya, oo yacni Iiraaniyiinta durbaba inay isu diyaarinayaan inay xiriiriyaan korontadooda iyo sidoo kale korontada Qatar. mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dalalka Khaliijka ayaana lagu warramaya kaas inuu noqon doono. aan u soo laabano qodobka 8 inuu yahay baan filayaa. Tehran iyo Washington waxay ku heshiiyeen in mustaqbalka waxyaabaha uraniumta ee la hodmiyey gebi ahaanba lagu xalliyo heshiisyada kama dambaysta ah. Iiraan mar kale waxay xaqiijinaysaa weligeed inaysan soo saari doonin hubka nuclear-ka. labada dhinac waxay isku raaceen xaaladda hadda jirta in heshiiska madambaysta ilaa laga gaarayo in sidaan lagu hayo. qodobka 10aad, Iiraan waxay sii haysanaysaa barnaamijkeeda nuclear-ka hadda jira, halka Mareykankana cunaqabatayn cusub uusan ku soo rogi doonin, sidoo kalena uusan kordhin doonin ciidankiisa gobolka ku sugan muddadaasi. qodobka 11aad, Mareykanku wuxuu ballan qaadayaa in la dhaafo ama la qaado cunaqabataynta saliidda ee dowladda Iiraan iyo adeegyada bangiyada ee la xiriira dhoofinta saliidda. yacni caalamka u iibgeyn karaysaa Iiraan wixii hadda ka dambeeya saliideeda. qodobka 12aad, Washington waxay sidoo kale ogolaanaysaa in la sii daayo hantida dowladda Iiraan ee dibadda ku xayran oo in ka badan 20 bilyan oo dollar ah. marka la helo damaanad muujinaysa in qaar ka mid ah qodobada heshiiska la fuliyay, labada dalba waxay si rasmi u bilaabi doonaan wadahadallada heshiiska kama dambaysta. qodobka 13aad ayaa sidaa dhigaya. kan 14aad ee ugu dambeeyana heshiiska ugu dambeeya ee Washington iyo Iiraan waxaa lagu saxiixi doonaa qaraar waajib ah oo ka soo baxaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
qodobadee ayaad isleedahay iiraan ayay dani ugu jirtaa, qodobadee ayaad isleedahayna iiraan dani uguma jirto, aragtidaadana la wadaag. ugu dambeyntii maraykanka ma wuxuu doonayaa dib in loo soo celiyo dagaalkii sunniga iyo shiicada? maxaa sidaa u leeyahay? sida warbaahinta ay baahisay madaxweyne trumpna laga soo xigto, isagana uu yiriba talaadadii shalay ahayd, wuxuu yidhi israa'iil waa inay axmed al-sharac u ogolaataa iyo dowladda siiriyaba inay arinta xisbullah iyaga yacni ay maareeyaan. israa'iil way ku fashilantay inay arinta xisbullah ee lubnaan ay soo gabagabayso, sidaa daraaddeed waxaa faylkaasi kaga roon buu leeyahay dhanka suuriya in loo daayo iyo hogaamiyaha iminka talada haya. waxyar aan dib u laabanno, waxaa la xasuustaa xisbullah iyo iiraan wixii ay ka geysteen gudaha dalka suuriya. matii baa la doonaya in la yidhaahdo reer siiriya ka aarsada reer lubnaan, adinka ayaan idiin daynay, wadooyinka ka xira, adinka la dagaalama. yacni ma iyagaa la doonaya qoorta in la isu geliyo, maadaama hadda awooddii iiraan ee dalka suuriya aanay jirin, isbeddel la weynna uu dhacay. madaxweyne trump oo warbaahinta la hadlaya wuxuu yidhi hogaamiyaha hadda ee ka taliya dalka suuriya waa shakhsiga isaga uu taageeray, isagoo ku tilmaamay mid mas-uuliyad leh oo si wanaagsan u maamulaya dalkaasi Syria. waxaana uu xusay in al-sharac uu si dhow ula shaqeeyo Erdogan iyo hogaamiyaal kale si loo xasiliyo Suuriya loona mideeyo dalka kadib sanado badan oo dagaal iyo qalalaase ay dhacayeen. marka wuxuu yidhi Trump, inkastoo al-sharac uusan ahayn nin qoman, haddana wuxuu qabtay shaqo weyn buu yidhi oo dib loogu soo celinayo kala dambeyntii dalka Suuriya. Israa'iil marka waxaan u soo jeediyay buu yidhi inay Suuriya u ogolaato in arinta faylka Xisbullah iyaga lagu wareejiyo, sababtoo waxaan aaminsanahay buu yidhi in shaqadaasi si ka wanaagsan Israa'iil ay Syria u qaban karto. waxaan filayaa wax badan inaad halkaas aad ka fahamtay, aragtidaadana la wadaag like-sar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. dowladda Talyaaniga ayaa qorsheynaysa inay nidaam difaaci dhanka cirka ah ay geyso bartamaha dalka Turkiga, iyadoo tallaabadan ay qayb ka tahay qorshaha difaaca isbahaysiga dalalka gaashaanbuurta NATO. arrintan waxaa maalintii shalay shaaciyay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Turkiga. wasaaraddu waxay sheegtay si loo xaqiijiyo difaaca dhanka cirka ee gaashaanbuurta NATO, nidaamka difaaca cirka nooca loo yaqaano SAMP oo Talyaaniga uu leeyahay in lagu rakibi doono saldhigga ciidamada cirka ee weyn ee saddexaad ee ku yaala magaalada Konya ee dalka Turkiga. nidaamka SAMP loo yaqaano waa nidaam gantaalo ah oo dhulka laga ridi karayo, sidoo kalena beegsan karaya bartilmaameedyada hawada ama diyaaradaha dagaalka. waxaana si wada jira u farsameeyay Talyaaniga iyo Faransiiska. wuxuu awood u leeyahay inuu ka hortago diyaaradaha dagaalka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada cruise-ka iyo qaar ka mid ah gantaalada balastiga. inta uu socday dagaalka u dhexeeya Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan ee bilowday dhamaadkii bishii February, ciidamada gaashaanbuurta NATO ee Turkiga ku sugan 4 jeer ayay sheegeen inay soo rideen gantaal balastiga. taasi awgeedna NATO waxay hore u geysay baytiriyo cusub ee gantaalada Patriot-ka saldhigyada ciidamada cirka Incirlik lagu magacaabo oo koonfurta dalka Turkiga ku yaala. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte ayaa dhankiisa wuxuu sheegay intii booqashadu ku joogay magaalada Ankara bishii Abriil ee sanadkan in NATO ay samayn doonto wax kasta oo lagama maarmaan ah si ay u difaacaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. laakiin arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo bisha Juulaay ee soo socota Turkiga uu martingelin doono shirka wadamada gaashaanbuurta NATO, iyadoo xoojinta difaaca dhanka cirka ee dalkaasi loo arko tallaabo lagu adkeynaya amniga xubnaha isbahaysiga xilli gobolka xiisada ay ka jireen, inkastoo xiisada hadda la doonayo in la soo gabagabeeyo sida heshiisyada ku cad. aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. ugu dambeyntii wasiirka tamarta ee dowladda Iiraan Cabbaas Cali Cabaadi ayaa sheegay in dowladda Iiraan si dhow ay u bilaabi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo ama lagu xiriirinayo shabakadaha korontada ee dalkaasi Iiraan iyo tan Qatar. waxaa xusay in daraasadaha farsamo ee mashruucan ay marayaan heerkoodii ugu dambeeyay, islamarkaana uu galay wejigii ugu horreeyay ee hirgelinta. sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee Tasniim, mashruuca isku xirka korontada ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo iskaashiga dhinaca tamarta ee u dhexeeya Qatar iyo Iiraan. wasiirka waxaa sidoo kale uu sheegay inay socdaan daraasado lagu eegayo sida ay shabakadaha korontada ee dowladda Iiraan lagu xiriirin karayo shabakadaha korontada ee dalal ka tirsan wadamada Khaliijka, si gaar ahaaneed dalka Qatar. Al-Cabaadi waxaa intaas uu ku daray in mashaariicdan ay qayb ka yihiin qorshaha Iiraan ee lagu ballaarinayo iskaashiga gobolka ee dhinaca korontada, korna loogu qaadayo isweydaarsiga tamarta, islamarkaana lagu xoojinayo isku xirnaanta tamareed ee u dhexeysa Iiraan iyo dalalka dariska ah ee Khaliijka. sida warbaahinta arrimaha militariga ka hadla ay daabacayaan, waxaa lagu waramayaa in qaar ka mid ah diyaaradaha xamuulka qaada ee dowladda Imaaraadka Carabta
inay ka degeen saldhigga Nevatim. Maanta waxaa la diiwaan geliyay mid ka mid ah diyaaradaha xamuulka qaada ee Imaaraadka Carabta inay ku degtay saldhiggan oo Israa'iil ay isticmaasho, taas oo sii kordhisay hadalhaynta ku saabsan iskaashiga militari ee sii xoogaysanaya ee Abu Dhabi iyo Tel Aviv, xilli xiisada kala dhexaysa Iiraan ay aad u saramartay. Diyaaradan oo nooca Ruushka uu farsameeyay ee IL-76TD loo yaqaano waa kuwa xamuulka culus qaadi karaya, halkay ku degto oo Nevatim ahna waa saldhigga ugu muhiimsan ee saadka iyo howlgallada cirka ee ciidamada Israa'iil. Wararka waxay sheegayaan in suuragal ay tahay Imaaraadka Carabta halkaasi inuu ka qaatay nidaam difaaceed Israa'iil ay hore kaga iibsadeen, xiriir iskaashi oo militarina uu u dhexeeyo. Khatarta joogtada ee gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee dowladda Iiraan ayaa weli taagan, oo Imaaraadka Carabta wuxuu ka walaacsan yahay suuragalnimada in diyaaradaha Iiraan mar kale saameyn ay ku yeelan karayaan warshadaha iyo wax soo saarka dalkaasi. Marka la eego falanqaynta ilaha madaxa bannaan, waxay qiyaasayaan in xamuulka ay u badan tahay qayb ka mid ah nidaamka difaaca hawada ee Iron Dome ama qalab kale oo nidaam difaaceed la xiriira in Imaaraadka uu qaadanayay. Sidoo kale waxaa suuragal ah in nidaamyada digniinta horena la gaarsiiyay gudaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Falanqayn ahaan wax ugu macquulsanna ma ahan in Imaaraadka ay Israa'iil u dirtay hub weerar ah, balse waxay u badan tahay in la isdhaafsanayo qalab la xiriira difaaca gantaalada iyo raadaarada, maadaama labada dhinac ay ka walaacsan yihiin awoodda gantaalada ee dowladda Iiraan. Duulimaadkan wuxuu u muuqanayaa qayb ka mid ah shabakad difaac oo dhanka gobolka oo u dhaxaysa Imaaraadka, Bahrain iyo sidoo kale Israa'iil, sida xogta raadaarada iyo digniinaha horeba ay bixinayaan. Sidaa daraadeed, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn diyaaradan waxyaabihii ay ka qaaday saldhigga Nevatim, haddana goobta ay booqatay waa mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee ciidamada cirka ee Israa'iil. Macluumaad kasta oo kasoo kordha diyaaradan waan kula wadaagaya insha Allah. Dowladda Hindiya ayaa si guul ah waxay u tijaabisay markeedii labaad gantaal cusub oo lagu farsameeyay gudaha dalkaasi Hindiya. Gantaalkan ayaana xoojin karaya awoodda New Delhi ee weerarada saxda ah, weliba masaafooyinka aadka u fog, xilli xaaladda amni ee gobolka Indo-Pacific ay sii adkaanaysay. Dowladda Pakistan dhankeeda diyaargarow xoogan ayay ku jirtaa tijaabo hub noocyadiisa kala duwan, iskaashi dhanka military oo dhex maraya Pakistan iyo dowlado kale oo gobolka ah. Tijaabadan waxaa fulisay hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta difaaca ee dowladda Hindiya oo DRDO loo soo gaabiyo, waxaana ay ka dhacday jasiiradda Abdulkalim loo yaqaano ama ABJ Abdulkalim maalintii shalay gelinkii dambe, waxaana lagu muujiyay horumarka weyn ee dowladda Hindiya ay ka gaartay dhismaha nidaamyada gantaalada cruiska, kuwaas oo gudaha dalkaasi lagu farsameynayo. Waxaana arrintani qayb ay ka noqonaysaa istaraatiijiyadda cusub ee cabsigelinta iyo difaaca dowladda Hindiya. Gantaalkani cusub oo gudaha Hindiya lagu farsameeyay waxa uu gaari karayaa masaafo dhan 1,000 kilomitir, waxa uu qaadi karayaa madax qarax oo miisaankiisa uu yahay 450 kilogram, taas oo siinaysa Hindiya awood ay ku beegsan karto xarumaha taliska, saldhigyada saadka, raadaarada muhiimka ah iyo maraakiibta cadowga, iyadoo gantaalka si hoose ugu duulaya dhulka dushiisa si uu uga dhunto nidaamyada difaac ee dhanka hawada. Tijaabada sidoo kale waxa ay muujinaysaa dadaalka sii kordhaya ee dowladda Hindiya ay ku doonayso in ay ka madax bannaanaato tiknoolajiyadda dibadda, gaar ahaan dhinacyada matoorka, nidaamyada hagista, dareemayaasha iyo qalabka elektrooniga ee gantaalada loo isticmaalo. Mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda gantaalkan soo saaray waxa uu sheegay in dhammaan yoolka tijaabada la gaaray, iyada oo nidaamyada raadraaca iyo xog ururinta ee ku yaala xarunta magaalada Jandipur lagu magacaabo ay xaqiijisay saxnaanta hagidda iyo awoodda leexashada ee gantaalka iyo sida uu xasilooni ugu duuli karaya gantaalkan. Dowlad kastaaba cadowgeeda ayay arkaysaa, waxaana mar walba dowladaha deriska isu arkaan inay yihiin kuwa cadow ah, waana tan keenaysa inay diyaariyaan noocyada kala duwan ee tiknoolajiyadda. Markaad eegto Hindiya iyo Pakistan, xitaa Shiinaha raaci. Tijaabadan waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sare oo ka socday ciidamada badda, ciidanka cirka Hindiya iyo mas'uuliyiin kale. Taasina waxay muujinaysaa gantaalka Al-R Lakmi loogu magac daray in loo qorsheeyay inuu noqdo hub ay wada isticmaali karayaan saddexda ciidan ee dalka, halkii uu ahaan lahaa gantaal u gaara hal ciidan oo kaliya. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Hindiya Rajnath Singh wuxuu ku tilmaamay guushan guul weyn oo dhanka awoodda difaaca gudaha, isagoo carabka ku adkeeya muhiimadda mashruucan iyo sidoo kale istaraatiijiyadda dowladda Hindiya. Mashruuca sidoo kale waxaa la sheegay in uu qayb uu ka yahay mashaariic kale oo dowladda Hindiya ay doonayso inay ku soo saarto gantaalla gudaha ah. Caalamkii hadda waxa uu u diyaar garoobayaa ama uu samaysanayaa diyaarado daroonisa, nidaam difaaci dhanka hawada ah iyo sidoo kale gantaalla cusub oo dhammaantoodba dowlad kastaaba ay doonayso in ay sare ugu qaado awoodeeda dhanka cirka
lagana hortago khatar kasta oo mustaqbalka imaanaysa. si walbaaba tiknoolajiyadii dunida way isbedelaysaa, annagana maxaan ku mashquulsanaa? aragtidaadana la wadaag laagisaan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.